السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعت هذا waxaan ahay dhakhtarka bartay dumarka haweenka caafimaadkooda waxa ku saabsan as OBGYN obstetrics and gynecology in badan ma naga maqnaa laakiin waana maqlay waan soo noqday alxamdulillah. waxaan doonayaa maanta bisha cancer ku dhaca dumarka naasahooda waxaa ka dhib badana Mareykanka waan arkaynaa dumar oo 30 jira 40 jira oo yaraantood even kuwa 20 jira oo breast cancer ku dhacayaan and waa muhiim inta badan waxaa la bilaabaa marka 40 jir tahay markaasna sanadkii ku sii xigaba 40 jir ayaa mammogramkaasi oo sawirka laga qaadayo naasaha markaasna waxaad hubsanaysaa hadduu cancerkii ku bilaabmay qofkii waxaad insha Allah ku dadaalaysaa inuu qofkii cancerkii ku fidin in asagoo yar la qabto. laakiin haddaad reerkaagu oo ku dhaceen breast cancer ka hor adiguna haddaa laga helay waxa la geneskaasi or BRCA geneskaasi oo ku saabsan ku dhigaya inaad cancerka maybe maha khasabna ku dhaca laakiin yar khatar ay kugu sii tahay inuu kugu sii dhaco dadka kale oo geneka qabin or BRCA geneka leeyahay. waa muhiim inaad ka hor yaraan 10 sano reerkaagii ehelkaaga qoyskaaga ugu dhawaa inaad laga baadho. nimankana way ku dhacdaa somaha just dumarka laakiin waxaa la sheegay September bishii ka hore soo dhaaftay the FDA anaka Mareykanka oo ku saabsan oo maamula waxa badan hadday tahay dawada hadday tahay qofka isticmaalayo oo instruments ko hadday qalniin tahay qofka dawada waxa la siinayo waxa badan bay control gaareen Federal Drug Administration kaasi Mareykanka. so waxay yiraahdeen marka raajada sawirka laga qaado dumarka naaska mammogramkaasi haddii la ogaado naasku uu yahay dense waxa weeyaan naasku wuxuu ku samaysan yahay wixii high D fat iyo fibrous tissue iyo glandular tissue iyo cystic changes baa lagu arki karaa. so high fatku hadduu yar yahay and fiberkaasaa badan iyo glandular tissuegaasi iyo cystic changeski wixii oo dhan way sii meeshii maha khasabku inuu naaska xoog weynaado laakiin density xoog buu u buuxaa wuxuu ka buuxaa fiberka iyo glandularki. so dib bay ka odhanaysaa raajadaas oo la saarayo mammogramkaasi sawirkaasi inuu arko muhiim haddaa la ogyahay naaskaagu hadduu dense yahay waxaa fiican 3D mammogram inaad codsatid instead of the 2D mammogramka beri hore la codsan jiray. taana waxay ku caawinaysaa insha Allah inaad la arko laakiin haddaad doonaysid waxa aad aragtid oo dhibic yar oo laakiin wax badan uu ku wareegsan yahay fibroskaas tissuegaasi iyo glandular tissue the cancerkii si dhib yar looma heli karo. waa muhiimna inay ku qoraan markaas jawaabta lagu soo celiyo maxaa laga helay inay ku qoraan naasuhu waa dense khasabna qofkii oo dhakhtarkaagii oo ku dalbay inuu ku sharaxo dad marka la eego gooni ahaan ehelkoodii ma dhibaatadan cancerkana kala ku dhacay ma genetic ayay haystaan oo BRCA genekaasi oo riski ugu kicinaya inuu cancer ku dhaco hadday tahay wax kale agekooda hadday tahay weightkooda miisaankooda wuxuu yahay waxaasoo dhan kale ayaa waxoo dhan qofkoo dhan ayaa la eegayaa qofkan maybe because naasi ayaa densa oo baruurta ka yartahay laakiin fiber iyo glandularka ayaa ku badan de si fiican usii aragno waxaa fiican either ultrasound lagu diro or mammogram oo kasii halisan ultrasoundka si dhabyar ay tissuega arkaya. ultrasoundkana haddaa lagu qorina waxaa lagu dari karaa MRI oo kasii fiican oo tissuegii oo breast tissuegii si fiican u arkaya tissuegu wuxuu ku samaysan yahay naaska weeyaan. so MRI-ga marka lagu sameeyo kaasi waa faleebaa lagu xiriyaa waxaa lagu marinayaa machine aad fadhiisanaysa sida CT iyo kale faleebadaas waxaa lagu furayaa markay biyo ku shubaan iyo dye so wax oo tusaya xididihii meeshay marayaan tissueguna ku wareegsan hadday wax agtooda ka korayaan. so dhiiggii meeshuu xididii marayaan oo naaska gudihiisa ayaa dan dye lahado oo raajada marka sawirka ama MRI laga qaado uu cadaanaya more. so waxaas markaas waa xididihii iyo wax kale oo xididaha ka samaysan oo maybe cancer noqota ayaa si dhib loo arki karaa. ultrasoundkana ma baahnid flavor lagu xidho gelkii baa la marinaya naaskii and then sidaasaa lagu wareejinayaa oo la eegayaa
meeshii armey wax kale kasii soo socdaan ilaahay amarkiina ma diideyno laakiin xun ilaahay dadaal buu yidhi so cimrigaas aan haysano waa fiicanta inaan ka faa'iidaysano inaad ka baqtid maha cancer hadduu kugu dhacay way kuu qoran tahay laakiin haddaad ka gaadhi kartid asagoo yar then waxay ku caawin kartaa insha allah ka gudubtid insha allahna cimrigaaga sii dheereeyo so waxaan ugu fadlan waxaan nii rajayn lahaa caafimaad cimri dheer kulligiinoo dhan laakiin dumar ahaan iyo nimankaba maamulgaanku hadday ehelkaaga ku dhaceen ah inaad isbaadhiin dumarka 40 jir sanad kastaba sameeya si kastaba yidhaahdaan sanad dhaaf waad og tahay inagu dad madow baan nahay kansaraha inta badan dumarka madow ku dhaca way kasii culus yihiin kasii dhib badan yihiin laga gaadho xoog bay u fidaan so sanad kastaba sameeya hadday inshuranskiina bixinayaan dhakhtarkiina la tashada ehelkiina dadkiina isu sheega qoyska hadday dhibaato oo cancer cuduro kale jiraan isu sheega ha qasqarina haddaa su-aalo ka qabtay caafimaadkiina ugu saabsan dumarka haweenka hadday ku saabsan healthka iyo wellnesskaasi waa niin joogaa waa walaashiin Dr. Hodan abaayadin Dr. Hodan caafimaadkii hawshii halkaasaan kasii wadaynaa insha allahna caafimaad cimri dheer kulligiin baan idin rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh